سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت ان موضوعنا بلابن فضلا موقال كان لايك صار سببتو dhiirigelin bay noo noqonaysaa subscribe-na naga iloobin laba ruux kasta maalin bay isbartaan dadkana iska doortaan si taas la mid ah laba ruux kasta maalin bay kala tagaan dookhuna uu kala diraa ilaa laba dulqaad jacayl iyo kalsooni ku noolaa mooye haddaad kala tagteen iyo haddii aad calaf isku hesheenba qadar kuu qornayd bay ahayd gabar yahay haddii uu hebel kaa tegay marnaba kulama sii joogi lahayn waayo intaadan dhalan baa la qoray in aad wiilkaa isbaran doontaan markaad 2 ama 3 sano ama bilo aad isla socotaanna uu kaa tegi doono ama uu kula sii joogi doono ma wax kuu qornaa baad bedeli kartaa waa maya haddaba ilinta iyo calaacalka maxaa keenay ma og tahay qof aad kala tagteen haddii aad u calaacashid in kibir uu ka sii qaadayo wiil yahow ama gabar yahay haddii uu qofi kaa tago waxaa dhici karta in mid ka fiican uu ilaahay kuugu bedelo weligaana qadarta ku qanac aniga YouTube-kaygii aan muddada ku soo rafaadayay si aan horumar uga gaaro markii aan cagta dhigay waddadii horumarka aan ku fakarayay inaan gaaro 100,000 oo subscribe ayaa layga jabsaday ma calaacalin ma qaylin oo kaliya waxa aan ogaa in ay ahayd qadar ii qornayd waxa aan ogaa in aan marnaba sii haysan lahayn farqi weyn baa u dhaxeeya markii ay daawan jirtay 200,000 oo qof maantana ay daawanayso 200 oo qof waa niyad jabaya laakiin adaa i dhiirigelin kara oo muuqaalkan sii share gareyn kara si ay dad badan iigu soo xirmaan aan mowduuceena ku soo laabanno markasta wuu kaaga duwan yahay jacaylkaagii koowaad dadka kale markasta xusuus gooni ah buu kuu leeyahay xitaa haddii aad muddo kala maqnaydeen il gooni ah baad ku haysaa ma faraxsan yahay mise waa murugaysan yahay gabadhu 3 nin ma ilowdo inta ay nooshahay 2 way ka sheekaysaa midna laabteeda ayay ku qarsataa oo cidna uma sheegto 2 way ka sheekaysaayo midi waa ninka gacan u qaada oo dila waxa ay asxaabteeda ku tiraahdaa ninkaasi waa xoolo doqon weeye maalin buu idilay gabar aad mar dishay weligaa ha ka soo agdhowaan way kaa sheekayn doontaa inkastoo doqonnimo tii ugu weyneed ay tahay in gabar gacan loo qaado adoo si tartiib ah wax ugu sheegi kara qofka labaad ay gabadhu iloobin waxa weeye ninkii ugu horeeyay oo jacayl ku abuuray ninkii ugu horeeyay oo ilin ka daadiyay ninkii ugu horeeyay ay kalsoonideedii siisay ninku marnaba kuma degdego in uu kalsoonida gabar siiyo laakiin dumarku kalsoonidooda si fudud baad ku heli kartaa waxaa dhici karta nin bil la sheekaysanayay ayay si degdeg ah ku jeclaanaysaa waana naxariista uu ilaahay ku abuuray indho naxariis leh qalbi qurux badan iyo kalgacayl aan qarsoomayn ayuu ilaahay siiyey dumarka qof walbana way waraabisaa kalgacaylkeeda maanta haddii uu aabbaha kaa dhinto waa murugo soo wajahday waxaa kaaga sii daran maalintay hooyadaa kaa dhimato kalgacaylkii ay ku waraabin jirtay baa soo xasuusanaysaa naxariisteedii baa soo xasuusanaysaa gabadhu ninka saddexaad aysan weligeed iloobin weligeedna aysan ka sheekaynayn walow saaxiibteeda ay ugu jecesha ha ahaatee waa ninkii ugu horeeyay ee taabta waad iska fahmi kartaa waxa aan ula jeedo guurka ka hor iyo kadibba waa noqon karaa sidee ku iloobaysaa waa shaqsigii ugu horeeyay ee maradeeda fayda xumaan yaa lay arkin jacaylkaagii koowaad haddii aad calaf isku hesheen alxamdulillaah dheh laakiin cilmi baaris aan sameeyey wax aan ku ogaaday 90% dadku way ku guuldaraystaan in jacaylkoodii koowaad ilaa heer mustaqbal isla gaaraan way adag tahay runtii maxaan sidaa ku iri qofkani maadaamuu jacaylkiisii koowaad yahay maadaamuu xiriirkiisii koowaad yahay maadaamuu jawi caashaq kii ugu horeeyay uu galay way adag tahay sida aad ula qabsatid ma garan kartid maxaa ninkan ku soo jeedan kartaa ma garan kartid
sidee qalbigiisa ku hanan kartaa sida walaalkaa oo kale baad u moodaa waayo walaalkaa kula dhashay waad isla soo korteen haddaad caydid iyo haddaad ammaantidba mar kasta walaashiis qaaliya baa tahay sida walaalkaa oo kale baad ku leedahay naga tag duqan yahow ninkana waxa uu ugu necab yahay qofta cayda wax kasta inuu iloobo ayaa dhici karta laakiin cayda raad bay maskaxdiisa ku yeelanaysaa waxa uu leeyahay alla gabadha maalin baan jacayl u soo bandhigtay way i cayday inkastoo dumarka 90% ay qalbi fiican yihiin aniga dumarka aad baan u jeclahay waana ixtiraamaa mar kastana waan la taliyaa waayo wax badan baan soo qiimeeyay anigu maadaama nin ahay waan dareemi karaa dhibaatada dumarka haysata sidaasaan ku iri 90% dadku way ku guul dareystaan jacaylkoodii ugu horeeyay in ay mustaqbal la wadaagaan mawduucu inuu sii dheeraadana ma rabo fadlan ha iloobin inaad muuqaalkan sheer garaysid si ay shacabkaygii igu soo laabtaan ugu yaraan 10 qof u dir aniga wax weyn bay ii noqonaysaa wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.